annagu haddaan federaalka nahay ama golihii sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya aan ka mid ahayn waxaan marqaati ka ahayn wixii la soo maray ee lagu heshiiyey ee Soomaaliya isku timid inay hal meel ka socon laayihiin tusaale haddaan dib ugu yar noqdo walaacan markii la muujiyay wax soo dhawaadeen xilliga doorashada soo dhawaatay haddaan idin sheego horta maanta 68 bari baa u dhiman 8 Febraayo 68 bari waa 2 bilood iyo 8 bari baa ka hartay lag ida dheelalo loo mucuna leeyahay waa 2 bilood iyo 8 bari waxa haray walaacan markii taas keenaysa maxay ku dambeynaysaa in la taas keenayso markii ay soo dhawaatay madaxda dawlad goboleedyada way isu tageen dhuusamareeb baa shir lagu qabtay shirkaas shir weyn buu ahaa waa isku wada yimid shanta dawlad goboleed way yimaadeen ra'iisul wasaarihii hore waa yimid madaxweynaha jamhuuriyadda waa yimid waxba lagu soo heshiiyey wax fiican baa lagu soo heshiiyey yadidiilo Soomaaliya oo dhan gelisay oo gacanta la isku soo qabsaday oo Soomaaliya u horseeday in mataqaanaa ay rajo fiican ay hesho markii la soo kala tagay ee laga soo tagay meeshii la yiraahdo dhuusamareeb ee lagu soo kala noqday nin walba muxuu ahaa dawlad goboleedkiisa uu ku noqday iyo xamar inta ku noqonaysa ku noqotay balantii la isku ogaa maalintii khamiis buu madaxweynaha jamhuuriyadda xamar aaday madaxweynayaasha dawlad goboleedyada jimcadii bay soo kala tageen sabtidii waad ogeydeen wixii dhacay xukuumaddii inay wax hagaajisay la rabay waa tii la bedelo meesha laga saaray meeshaas rajo xumaa ka soo baxday waad ogeydeen waa tii haddana walaac kale uu yimid walaaci dheeraa ee la muujinayay iyo la sii kala fogaanayay ka bacdi isu tanazul ka imaanayay waliba dawlad goboleedyada especially dawladda Jubbaland iyo dawladda Puntland ka imaanayay mar walba oo markii haddaan dib ugu noqdo madaxweynaha Jubbaland waftu hogaaminayay ay tageen meeshii la yiraahdo Garowe oo wada tashi laba dawlad goboleed isu tageen wada tashigaas wixii ka soo bixi lahaa ilaa warwalaalayaal hal isu yimaado xamar hal isku yimaado madaxweynaha federaalka uu faray ay aqbaleen Puntland iyo Jubbaland oo ay tageen meeshii la yiraahdo xamar dawlad goboleedka kale ay yimaadeen oo ogtihiin waliba markii ay xamar tagayeen in saddex dawlad goboleed kale ay baydhabo ku shirahayeen ayagoo oo waliba remote loo hayo fila Soomaaliya looga dhaxayo si wad soo wad waxa isku tagay xamar muddo bil iyo dhowr cisho la fadhiyay xamar waxba lagu soo heshiiyay maxaa lagu soo heshiiyay in la soo tanazulo isjiid dheer ka bacdi in doorashadii ay dhacdo qodob baa lagu soo heshiiyey Soomaaliya si lagu badbaadin lahaa heshiiskaas waxa la yiraahdaa heshiis siyaasadeed waxa laga bedeli karo hal qodob laga bedeli karo heshiis siyaasadeed heshiiskaas siyaasadeed waxa gaaray shantii dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mar hadduu heshiis siyaasadeed yahay wuu ka bedelan yahay heshiisyada sharciga waa ka bedelan yahay wixii la isku ogaa inaan waxba laga bedelin buu ahaa heshiiskaas markii la gaaray markii la soo kala tagay waxa laga joogaa 2 bilood ba haddana laga joogaa waxay wax ka dhaqaaqi waayeen oo fulin waayay oo wax alla wixii la isku ogaa ka baxay fila Soomaaliya haddana ka baxday mar labaad tii dhuusamareeb bay ka baxday mar labaad haddana tii xamar lagu soo heshiiyey haddana fila Soomaaliya way ka baxday anigu waa ku celiyaa waxaan nahay sharci dejiyaashan nahay marna ma baqayno waa sheegaynaa meesha wax ka qaldan yihiin dawlad goboleedkaygii aan matalahayay ee aan federaalka ugu jiray hortooda marka waayeel hortiisa caano loogu barxaye haddii aad wax idinka qaldanaayeen akhyaar baa iga dambaysee waa idin sheegahayaaye ballantii lagu soo heshiiyey waxaa ka baxay fila Soomaaliya ka baxday maxaa ka mid ah ballantii lagu soo heshiiyey waxaa ka mid ahaa dawlad goboleed walba inay muxuu ahaa doorasho ka dhacdo guddiyo la soo magacaabo heer federaal ah iyo heer dawlad goboleed kastana ay u diyaar garowdo doorashadeedii maanta waxa weeye 1 December qodob ka mid ah wuxuu ahaa aqalka sare maanta oo 1 December ay koow tahay iyo 15 December inay soo baxaan muxuu ahaa aqalka sanadka la soo saaro iska dhaaf arintii oo la sameeyay hadda dabki ma qoolowno oo ma taqaanaan wali lama qoolaabin macnaha wax ashqaal ah iyo qalqaal midna ma socoto haddaan u soo dhaco marka dawlad goboleed kasto Puntland baa geeska u jirtay dawlad goboleedyada galmudug baa ku xigta hirshabeelle ku xigta koonfur galbeed baa ku xigta Jubbaland baa geeskan galbeedka u soo jirta
ama koonfur galbeed soo jira dhac soo jirto wixii lagu heshiiyey waxa weeye dowlad goboleed kasta inay laba meelood ku qabato muxuu ahaa doorashadeedii dowlad goboleed kastana ay u madax bannaan tahay meesha ku qabanayso oo ay tagayso gobolkan markaan u soo noqdo la yiraahdo Jubbaland waa dowlad goboleed ka kooban 3 gobol hal gobol oo kamid ah wali nimanka shaadiinta ah haysta shabaabkii baa haysto ilaahay kiis mar kamid ah oo la qaban doonaa gobolka Gado iyo gobolka Jubbada Hoose labada magaalo madax in lagu qabtay ahayd laakiin shardi baa ka horeeyay muxuu yahay shardiga ka horeeyay in dowlad goboleedka Jubbaland loo madax baneeyo maxaa la yiraahdaa meesha ay ku qabanayso doorashada waxay ku jirtaa heshiiskii oo garbaharay haday noqoto iyo haday Kismaayo noqoto ee dowlad goboleedka Jubbaland u madax bannaan tahay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa dudun in la dugaashado iyo in la dareesto iskuma daro heshiis baa la soo galay madaxweynaha ugu weynaa oo lagu siixay filla Soomaaliya waxa weeye dowlad goboleedka Jubbaland doorashada way qabanaysaa gobolka Gadana ana maamulahayo oo filla Soomaaliya ah oo u dirsanayo wiilal Maleesiyaad ah oo ay maamulahayo inaan isqabanay taas waan filayaa waad ogtiin inaad ii sheegnana waa rabnaa meesha koowaad oo ay sirta ku qorantay oo ay ka daawoobi laadahay waxa weeye heshiiska lagu soo heshiiyay meesha la yiraahdo filla Soomaaliya ay ku saxeen shanta dowlad goboleed madaxweynayaashooda iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha waxay ahayd in loo madax baneeyo dowlad goboleed kasta meesha ay ku qabsanayso doorashadeedu oo meesha ahayd baalka la yiraahdo Gado miyaa laga gooyay Jubbaland waa maya waa Jubbaland mana kala gooyso mana kala gooy doonto haddaan tusaale yar idin siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la heshiinayay oo meesha lagu heshiinayay wuxuu yiri 10 xildhibaan ee aniga beeshayda ah haligeeyo meesha la yiraahdo Garbaharey intaas kaliya horta bal intaas hal dib loo fiiriyo maxay tahay bal fiiriyo intaas ma madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee min koonfur ilaa waqooyi xukumayba mise waa madaxweynaha Garbaharey horta intaas la kala ogaada la rabaa inaan ku dheeraado ma doonahayo waxa hawsha ay ka socon laadahay oo hawsha dibindaabiyeynayo waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegayaa marka yar baan u diray rabaa anoo kaga faa'iidsanayo inta aan fariinta dirin ka horo waxa isxilqaamay oo walaac muujiyay oo isu tagay niman la yiraahdo murashaxiinta midowga murashaxiinta madaxweynaha u sharaxan oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo ay ku jiraan ra'iisul wasaareyaashii hore qaarkood oo ay ku jiraan madaxweynayaal dowlad goboleedyo hore u soo maray oo ay ku jiraan dad aqoon-yahan ah oo ay ku jiraan xildhibaano aad wada garanaysaan meel bay isku tageen ayagoo walaac muujinayo ama firaaq inuu imaado dalka faraha ka baxo shambari bay fadhiyeen go'aan bay soo saareen go'aanadoodii 18 qodob bay ahaayeen baan filahayaa haddaan qaldanayn wad wada akhristeen war guddigan la sheegayo oo la dhisay oo filla Soomaaliya ay dhistay waxay ka kooban yihiin nabad sugiddi iyo kuwa ka shaqeynaya filla Soomaaliya war aliin haduu alla yahay sax ma ahan guddigan hal la bedelo oo waxyaalaha qaldan hal la waxeeyo oo Somaliland golaheeda baarlamaanka labada aqal waxa weeye loo madax baneeyo oo waxa jooga meesha gudoomiyihii aqalka sare oo ah madaxweynaha awoodda koowaad haduu madaxweynaha leeyahay labada gudoon ee baarlamaanka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waa labada inuu ku xigto asagoo jooga Cabdi Xaashi Cabdullaahi baa la yiraahdaa waa taqaanaa gudoomiyaha aqalka sare asagoo jooga inta laga qaaday yaa mahdi guulad hawada hawsha la leeyahay iyo niman ma taqaanaa hawsha meel ay soo martaan ogeyn iyo midnimada Soomaaliya iyo meesha soo martaan aan garanaynin tii ayada ahayd bay ka hadleen waxay yiraahdeen Soomaaliland loo madax baneeyo qodobadii aan taabanay qodobo ka mid ah gobolka la yiraahdo Jubbaland systemkiisu waa dhisay madaxweynuhu leeyahay madaxweyne ku xigeen buu leeyahay laba madaxweyne ku xigeen golo wasiiru leeyahay iyo dhammaan systemkiisu waa u dhisan yahay hal laga soo baxo meesha la yiraahdo maamulka looga soo baxo meesha la yiraahdo gobolka Gado hal ugu wareejiyo Jubbaland hal ugu wareejiyo
هما مشانو فيلا سوماليا دغاي جلق uma siinin waxa la sheegaya maxay tahay meena dhihin saaka marka waxaan rabaa fariinta inaan u diro filla Soomaaliya fariin u diro maadaama 68 habeen ay hartay Soomaaliya oo dhan indhaha taagayso kowda luuliyana waan la hadlay maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta oo kowda December waan la hadlayaa madaxweyne unsur aqaaka xadiis buu ahaa unsur aqaaka daaliman oo madluuman buu rasuulka kaleey salaam yiri war walaalka u heelay haduu gardaran yahay hadii la gardaran yahay u heelay walaalkay baa tahay maxamed Cabdullaahi Farmaajo adeerkay baa tahay Soomaali way tagtay Soomaali waxay sugaysaa sagiir iyo kabiir 8 Febraayo inta ka horeysa hadaadan xal la imaanin wixii fidna ah iyo wixii dhibaato dhacda adiga farta lagu soo taagi doonaa hadii farta lagu soo taagana anigu dhowr jeer baan dabcan iska baryeelo oo wuxuu haleeyay Farmaajo kali ku taagay yaan dhig jiray gooni wali Soomaaliya wareeg been baa sheegaysaa wad kula jirtaa wala dhig oo ina talaari gilgilisho ka maartay adeerka weeye ama qabo ama ma taqaanaa runta u sheeg baa leeyahay maanta runta ku sheegayaa waqtigii uu soo dhamaaday 68 cashaa hartay haddaad xal degdeg la imaan weydo haddii wixii Soomaaliya ka halaabo oo 20 sano la soo dhoobahayay carta markii laga soo bilaabo hadeer wixii halaabo aday hooyo abu ku leedahay adigay hooyo iyo abu ku leedahay gobolka Gado wuxuu ka mid yahay Jubbaland kama bixi doono kamana go'i doono waxa weeye u madax bannaay Jubbaland maamulkeedii maamulka Jubbaland u madax bannaay gobolka Gado ka bixi wiilasha yaryarka oo askarta ahaan jiray oo ma taqaanaa maamulkaad ku sheegaysa ka bixi ku wareeji maamulkii iska laha muxuu ahaa oo Jubbaland ku wareeji baan ku leeyahay waa nasteexo waaye waxaan aqrinayaa nasteexo qoladan itixaadka waxay jireen waa idin nasteexinayna maanta waa ku nasteexinayaa bahalka la yiraahdo gobolka Gado wuxuu ka mid yahay Jubbaland ka dhax bixi maxaa la yiraahdaa wiilasha yaryarka ah ee qaylinayo ee waashay ka dhax bixi maamulka Jubbaland ku wareeji waa nasteexin weeye waxa weeye marka hadii intaas dhacdo walaaca Jubbaland ay muujinayaan walaaca Soomaali weyn ay muujinayso walaaca meel kasta laga muujinayo way hagaagaysaa wali jaanis baan haysanaa hadii arintaas marka dhici weydo wixii dhaco oo halaysa oo halaabo oo Soomaaliya ka halaabo adigay hooyo abu ku leedahay intaas waa fariintan u diraahay adeerkay maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay gaar doontana waa filahayaa Jubbaland wax ka halaysan ma lahan Soomaaliya wax la leedahay haddii Soomaaliya heshiiso oo ay ku heshiiso in la soo yimaado oo miirka uu soo dago oo ma taqaana Ilaahay intuu miirka soo dajiyo ma taqaana la soo yimaado Jubbaland ko way ka tahay wax ka halaysan ma lahan laakiin intay saan ku socoto waqtiga wuxuu ku dhamaanayo waa adiga kuleeyahay waqtiga wuxuu ku dhamaanayo 69 baa ku dhimanay maanta 68 baa ku dhimanay dadkii gaamuray madaxweynayaashii hore ahaa siyaasiyiinta hore ahaa xamar bay dhexda taagan way ku sugahayaan saasi ku fiirinayaan maalinta horeeto Shariif Sheekh Axmed intuu ka istaagay Xasan Sheekh Maxamuud intuu ka istaagay waana xamar meesha joogto been bay ku sheegahayaan kuwa ku ag taagan ee kule madaxweyne laga bilaabo ceelgaab ilaa iyo Hargeysa intuu dhaxayso iyo Raas Kamboori Raas Caseer adaa lagu sacabtumaya been bay ku sheegayaan wallahi been bay ku sheegayaan billahi been bay ku sheegayaan hadduu waqtiga dhamaado meelad ka baxdaad waysaa suuragal ah intuu soo waqtiga dhamaanin indhaha kala qaad dadka iskugu yeer madaxda iskugu yeer dawlad gobolada iskugu yeer waxa tiraahdaa war aniga hadii washii waxba halaabay dhaxda soo dhig baasha aad iyo aad baan salaamayaa anigu intaas inaan sheegan rabay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh